السلام الله عليكم صاحب عيال وحنا دين ولا برنامج آد حساسية فضلا انت نقول البرنامج كان وحنا دين كعسنا يا إن اليوتيوب جل كي سبسكرايب ساتان مقال كان استشير كريسان سيو برشكل نقدر ده واحد صار سبسكرايب سيا فيديو جديد ونقول هاي الجديد يوحكوا إن كان بلنا هذا بقى أنا قلت لنا برنامج كنا ما أنتوا كانوا قناة sababaha dumarka kalifa inay guurka ka daahaan in badan waan aragnaa dumar badan ayaa guurka ka daaha oo gaara ilaa daada fartimeeyada ama 35 jirka sababo ayaa jira ma badna inta badan waa boqolkiiba hal ama kuwa dhan mararka qaar dumarka sidaas ah laakiin maanta aynu ogaana sababta haddaba sababaha ugu muhiimsan waa 3 sababood saddexdaas sababood sababta koobaad waxay noqonaysaa gabadha oo ah mid mustaqbalkeeda kale hami fog mid aqooneed mid horumareed dhan walba gabadhu markay tahay gabar caqli badan oo mustaqbalkeeda leh hami fog inay waxbarashadeeda meel sare ka gaarto inay mustaqbalka dhaqaale fara badan sameyso inay bulsho badan hogaamiso inay xil qabato gabadhu gabar sida ku fikiraysa markay tahay dhaqsi ma guursato ama xitaa markay jeceshahay inay familkeeda horumar gaarsiiso sida tusaale ciyaal la dhashan ciyaalkaas waa hooyo la-aan iyo aab la-aan intaba iyada hormuud ah waxay jeceshahay inay mustaqbalka meel fog gaarsiiso si ay carruurtaas mustaqbalkooda uga fikirto waxay isku dayaysaa inaysan dhaqsi guursan taas waa sababta koobaad sababta labaad waxay tahay gabadhu inay tahay gabar aad iyo aad u masir badan oo xanaaq badan oo dabeecad xun gabadhu markay tahay gabar aad iyo aad u masir badan oo dabeecad xun dhaqsi ma guursanayso waxay moodaysaa nin walba oo yacni maaragtay iyada la sheekaysta ama wax dhex maraan inuu khiyaano loo yahay oo yani maaragtay gabar kale la shukaansado masaag dartiis maba gaaraya xiriirkooda meel ay guul iyo waxyaabana lamida ay ka fikiraan nin walbana iyadaa ka dhaqaajinaysa oo xiriirkii u socday ka tegaysaa tay dhalaceen dusha ugu turto ama waxyaabo kale oo khiyaana iyo waxyaaba noocaas ku eedeyso xitaa hadduu isagu daacad yahay iyadaaba maba u dul qaadan kartaba waxaa lahaa dooq wareer ama yabaal qofka noocaasa tusaale waad aragteen qofku markuu yabaal badan yahay ama uusan dooq lahayn tusaale markaad magaalada aada dar ama labis u doonato kale maanta dhawad wareegaysaa sidaad u socoto u wareegayso aakhirka markaad daasho waxaad qaadanaysaa dharka nooca ugu xun haddaba waxaa jira dumar noocaas ah oo dooq ka weeraro oo aada u yabaal badan maseebkooduna taroba yahay oo aan xad lahayn nasiibku waa wax jira rag iyo dumarna wuu ka dhexeeyaa waana wax iska caadiya laakiin qofku bini aadamka waxaa loo baahay masayrkiisu inuu xad leeyahay uu qiyaasan yahay oo isxakameyn karo laakiin hadduu ku gaarsiiyo heer aad guurkaada xitaa ka daahdo masayrkaas ma aha midkii loo baahnaa haddaba sababta saddexaad waxay noqonaysaa gabadha oo yaraanteedii la kulantay tusaale markay 16 jirka 15 jirka 17 jirka ahayd inay jacayl samaysay jacaylkeeda ku guuldareysatay dhowr mar la kulantay dhibaatooyin fara badan jacaylkoodii koowaad ku guuldareysatay keedii labaad ku guuldareysatay keedii saddexaad ku guuldareysatay guuldaro keliya maahna inay la kulantay dhibaatooyin fara badan oo jacaylkaas ka soo gaaray tusaale mar walba iyada wax jeclaanaysay iyada leena rafaadaysay oo dhibaatooyin fara badan kala kulmaysay inay la xanuunsato la dhibtooto dhibaatooyin fara badan kala kulantay qofka bini aadamka wuxuu leeyahay jir danqada markuu dhowr mar waxaa lahay dambas niman ku guban kama fogaado shayga markaad dhowr mar ku dhibtooto waxaad ku qasban tahay inaad ka fogaato si uusan dhibaatooyin kale kuu gaarsiin gabadhu markay dhowr mar ku guuldarayso jacaylkeeda inay kasbato ama khasaare kula kulanto waxay sameynaysaa inay ka fogaato jacayl dambe oo ay nin dhanba tawaaf ka qaado
oo ay aamini weyso ku kalsoonaan weyso sababtoo ah waxay isleedahay kan haddaad qalbigaaga siiso sidii kii hore camal kugu ciyaarayaa oo raggii oo dhanba waxay moodayaan kulli inay isku wada mid yihiin sababtoo ah 3 mar ay khasaaro la kulantay runtii waa wax aad looga xumaado mana habboona in ay quusato oo ay sidaas fudud uga quusato guurka laakiin way jiraan dumar noocaas oo dhaqsi u guursan afrikana dumarka noocaas waxay guursadaan nin oo bilaa indhala-aan ay ku guursadaan iga guursa ah aan awlaadka helo maahna jacayl uma guursadaan sababtoo ah maba aaminayaan in jacayl uu jiro mana u sheegi kartid in jacayl uu wax jiraya sababtoo ah khasaarooyin fara badan ay kala kulmeen laakiin aakhirka waxaa laga yaabaa markay indhalaan ku guursato oo ay reer yeelato meel la degto in yacni maaragtaa ninkaas uu iska noqday maasha allah jacayl siiya oo haddana mar labaad ay nolosha dib ugu soo laabato oo ay aaminto dhixmar hore ay ka quusatay haddaba waxaan jeclahay mawduucan inuu aada idiin soo jiidin doono fadlan subscribe saar youtube channelkayga muuqaalkan sii share gareeya sidoo kale muuqaalka la gareeya waad mahadsantihiin asxaabta sida quruxda badan ee aad barnaamijyadeeda ula socotiin mahadsanidin